السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة هذا صاحبي الحرجين أنا عماد قبتين دمانتين با سورة هذا جنال كينو فسوني مقال عصب مقال كان حنقوله ولا قدونا أفر الشقاء وعدي أطاي أرضي هدي أمانة بلاودي أيادو كون نقون دينتو ميت كميدا إلها إدقالها وين أفرتان شقاء حنقوله ولا قدونا وحكا عاونيسا هادو مركي أو حبرسة دميسي إن هذا كول ولين شقاء إماشي شقاء وراسن لاد إماشي إن دقالة ee ka soo galaayeen afartan shaqo waa afar shaqo oo aad u muhiim ah oo arday adigoo hadda arday ah qaban kartid shaqooyinkaasna waxaa la dhahaa waa side hustle intaan side hustle ku gudbin marka koowaad horta waxaa muhiim ah inaad horta fahanti side hustle maxaa la dhahaa side hustle waxa waaye waa shaqo aad joogto ahayn uu qofka qabanayo balse uu ku helayo dhaqaale ama income fiican uu ka soo galaayo soo marka waxaa la rabaa marka intii aad waxbarashada ku jirtay inaad samaysatay il dhaqaale oo hadda si aadan hadhow ugu walwalin ama dhibaato kaaga imaanin suuqa shaqada inaad raadsi oo ay heshay dhaqaale kugu filan shaqooyinka kula wadaagi doono waa kuwa aad u fudud oo aad qaban kartid shaqada koowaad waxaa waaye oo adoo arday oo hadda aad bilaabi kartid ama jaamacad dhigo ama form 4 dhigo waa inaad samayso qoraalo ama writer inaad noqotid qof wax qoro wax qorista aad waa mid casri ah waxaa jira marka website-yo oo qofka inuu samaysto haddii noqon lahayd blog iyo haddii noqon lahayd wordpress-ka wordbloggaas aad samaysatay mawduuca ku soo gudbinaysi waxaa heli doontaa dad badan oo ku booqdo oo maxaa la dhahaa oo warbixintaada akhristo hadhow markaa heshay dad badan oo customer oo booqdo website-kaaga oo soo akhrista warbixintaada soo dhigtay waxay ku siinaysaa in dhaqaale aad ka heshay tusaale oo kale maanta waxaa tahay arday oo kale waxaa rabtaa inaad ardayda kale aad u sheegtay qaabkii wax loo imtixaanka loo baas lahayo kale qaabkii maxaa la dhahaa iskuulkii ama waxbarashada wax loo akhristo oo kale mawduucyada ardayda oo kale hadaa mar walba qortay waxaa heli doontaa arday badan oo website-kaaga booqato oo soo akhrisato wax ka faa'iido adina waxay ku noqonaysaa in dhaqaale aad ka samaysay hadhow markii waxbarashada aad dhamaysay waxaa haysataa main income source oo meel weyn oo dhaqaale aad ka heshay shaqada kale oo aan kula wadaagi doono waxaa la dhahaa waa content creator inaad noqotay inaad hadda adiga oo waxbarashadaada ku jira jaamacadda adiga oo ku jira waxbarashada dugsi sare inaad maanta u bilaad inaad content creator noqotay qof wax abuuro oo wax soo gudbiyo saad ognahay baraha bulshada social media platformskiisa hadday noqon lahayd youtube-ka hadday noqon lahayd facebook-ka haddii ay noqon lahayd tiktok-ka waxaa lagu soo gudbiyaa mawduucyo aad u badan oo uu qofka ku soo gudbiyo sidaas awgeed waxaa la rabaa inaad dooratay mid ka mid a topic-kaasna aan mar walba ka sheekaysay oo wax aa ka dhacdid tusaale kale waxaa tahay arday waxaa rabtaa inaad ardayda kale aa ugu sheekaysay qaabkii maxaa wax loo akhristo qaabkii maxaa imtixaanaadka laiskugu diyaariyo qaabkii maadooyinka intay koorsada bilaaban oo kale qofka inuu hordhac soo helo oo maadooyinkaas oo aa uga sheekaysay waxaa rabtaa inaad ka sheekayso rutiinka ardayga oo kale soo marka haddii janaal noocaas aa furatay oo aa mar walba kusoo gudbisay waxaa heli doontaa dad badan oo ku daawado daawashadaasay ku daawanayaanne waxaa ka helaysaa dhaqaalahaasna wuxuu kaa saaciidaa hadhow markii aad jaamacadda dhamaysay ama dugsiga sare aad dhamaysay inaadan waqti badan aadan gelinin inaa meel shaqo aad raadisatay ama shaqo aad heshay sababtoo xilliga ardayga saawad ognahay waa 4 sano oo dugsiga 4 sano oo maxaa la jaamacadda social science ama artistka kuliyadaha ama 6 sano oo medicine inta iska fadhin lahayd oo mar walba buug qaadi lahayd oo soo qaadi lahayd waxaa ka muhiimsan adiga oo focuskaaga koowaad ee waxbarashada inaad degree gaartay ama dugsiga sare inaad dhamaysay adoona ka bixin inaad maanta si abuuratay il dhaqaale oo maxaa la dhahaa content creator-kaas aad noqotay sidoo kale waxaa jirto shaqada kale waxaa waaye inaad noqotay graphic designer qof nashqadeeyo saawad ognahay maanta adduunku waa mid casri ah graphic designer-ka ama xirfadan graphic designer-ka waxay dad badan noloshooda ayay wax ka bedeshay maanta waxaa tahay arday waxaa haysataa janiskaas oo in adigii oo maanta dugsiga ay dhiganayo sare adiga oo dhiganayo jaamacaddaada ama medicine ama kuliyadahan kale artist adiga oo dhiganayo ayaa waxaa samayn kartaa inaad templateada aad samaysay templateada waxaa lahaa meesha youtube-ka waxa qofka uu soo dhigo topiga lagu soo qoro taas marka waxay kaa saaciidaysaa in aad dhaqaale ka heshay dad badan customer aa heshay sababtoo thumbnailka saawad ognahay wuxuu ka qayb qaataa muuqaalka viewska muuqaalka ayuu ka qayb qaataa sidoo kale haddii boostiyada xayeysiinta aad samaysid oo shirkadaha aad u dirtay oo kale waxaa ka helaysaa dhaqaale sababtoo hadda shirkadihii dhan waxay wax ku xayeysiiyaan digitalka muxuu u baahan yahay qofkii
ama inuu muuqaal sameeyo ama inuu post sameeyo oo ah qoraalkii wixii kusoo qoro. haddii marka xirfadan aa focus ka saartay oo ayada aa waqti badan gelisay adigoo ardaya maybe 6 bilood ugu horeys ayada aa baratay maybe semesterka 2ga 3ga 4ka 5ka 6ka waxaa heli doontaa customer fiican adigoo markaas markii aad jaamacadaada dhameysay oo maxaa la dhahaa shaqo badan aadan u raadinin meel oo dhaqaale ah ka heshay. midka kale oo ugu dambeeya waxaa la lahaa inaad noqotay web designer. web designer waxaa waaye inaad website-yadii inaad samaysay, sababtoo ah waxaa jirta arday badan oo IT-ga dhigto. IT-ga markay dhiganayaan waxaa arkaysaa ardaygii isagoo u jeedo fursado badan oo web designerka ayuu maanta wuxuu ka dawareegaa waxaa shaqadiisa in code iyo maxaa la lahaa programming iyo ka dawareegaa. waxaa ka muhiimsan inaad baratay web designka maadaama web designka uu yahay meesha ugu muhiimsan oo shirkad walbana ay muhiim u tahay. waxaa jiro softwareka la kale ama maxaa la lahaa WordPress jiro. WordPresskaas wuxuu kaa saacidaysaa in shaqadii oo programmingkii aad ku qaban lahayd aad code aad ku dhisi lahayd isaga ayaaba kuu diyaariyey. kaliya waxaa waa drag and drop waaye inaad xirfada web designka aad focus ka saaratay oo kursooyin yar oo dibloma inaad qaadatay kadibna adigoo ardaya inaad ku shaqaysatid, sababtoo ah mar kastoo adigoo ardaya tahay iyo xilliga aad waxbarashada soo dhameysay aad iyo aad ay u kala duwan tahay. marka muuqaalkan waxaan kula wadaagay 4 shaqo oo haddaa arday tahay oo maanta haddaa bilowday beri markaa waxbarashada dhameysay aad ku shukrin doontay oo ku noqon doonto il dhaqaale oo aad u weyn, sababtoo ah inaad maalin baxdid iskuulkii aad tagtay ama jaamacaddii aad tagtay oo aad fadhisay oo xiisada aad soo qaadatay kadib guriga aad imaad